saddex qof haday hortaadi ku hadlayaan dhageyso ha ku jarin hadalkooda xumaanna ugu bedelin labadaadii waalid cunuga yar iyo midka murugeysan maxaa yeelay qalbigooda ayaa hadlayo saddex dumarka waxay u ziyaadaysaa weynayn aadaabta cilmiga iyo dabeecadda wanaagsan waa lagu aasi doonaa si kastoo aad qiimo u leedahay waana la iloowi doonaa meel kastoo aad gaarsiisanayd sidaas darteeda ka tag raad fiican oo samee wax wanaagsan ay dadka kugu xasuusanayaan ayna kugu duceynayaan haddii aad xumaan ku dhacdo cidnaha u sheegin dadku way ku fadeexaynayaan oo kuuma cudur daarayaan ilaahay wuu ku asturayaa wuuna kuu dembi dhaafayaa laba shay waxay xadidayaan waxaad adigu tahay sabarkaagii marka aadan waxba haysanin iyo dabeecadaadii marka aad wax walba haysato ilaahu nagu arsuq sabar fiican iyo dabeecad wanaagsan laba shay qofka ayay burburinayaan inaad ku mashquusho wax kaa tagay iyo inaad ku mashquusho dadka kale qofkii gargaraaca albaab uu soo dhaafay mustaqbalkiisa ayaa dhumaya qofkii ilaaliyo dadka kale wuxuu waanayaa raaxadiisa qayb ka mid ah ha ka shalaanin noloshaadii qof aad baratay dadka wanaagsan waxay ku siinayaan farxad dadka xunna waxay ku siinayaan tijaabo balse dadka kuwa ugu xun waxay ku siinayaan cashir aadan ilaaweynin saddex kuma soo naqdaan hadal aad ku hadashay waran aad gantay iyo waqti kaa tagay kuma soo naqdaani ugu malakumoodka kuma sugayo ilaa aad iska toosinaysid ee adiga istoosi geeridana sug waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan subscribe gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo like saar haddii aad ka heshay lana wadaag asxaabtaada si ay kula faa'iideystaan inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxa idinkaga tagayaa sida iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh